hay-adda caalamiga ah ee BSI madashan Boorama ay ku qabatay isla markaana kulmisay 20 farmasi oo ka howlgala gudaha magaalada Boorama si gaar ahna loogu xushay adeega loo yaqaano bulsho kaab waxa ay daaranay sidii farmasiyada loogu dhiirigelin lahaa inay caafimaadka bulshada kaalin lixaad leh iska saaraan madashan ayaa waxa ka soo qayb galay siduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal saraakiil ka socotay hay-adda BSI iyo dadweynaha aad u tiro badan ugu horeyntii ayaa madashan waxa ka hadlay Cabdi Barkhad oo sarkaalka u qaabilsan hay-adda BSI gobolka Awdal waxana uu xusay BSI waxa weeyaan mar walba waxay u taagan tahay inay ka shaqeyso dadweynuhu siday u heli lahaayeen adeeg caafimaad oo tayo leh taana waxa lagu helayaa inamada farmasiyada jooga ama dadka farmasiyada jooga oo tayadooda caafimaad ama aqoontooda caafimaad in la tayeeyo madaxa hay'adda BSI ee barnaamijka loo yaqaano bulsho kaab mudane Cabdiraxmaan Cali Hirsi oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri shaqadan ka leenahay waxa weeyaan bulshadan aynu u shaqeynayno maxaa la raayay aynu ka la dhalanay waalaheena dadkeena inaynu siino adeeg caafimaad oo tayo leh isuduwaha caafimaadka ee gobolka Awdal Cabdiraxmaan Jaamac hadi oo madasha soo afmeeray ayaa isaguna carabka ku dhuftay أقصد سيجي لهذا بيسعى أنت أنا هيلين تربحوني كثير باتان ما دام الوقت عفنا رأيتحي وحي فرمسية شغيرية إن أي مشركة وقالي هدي أوجي ياسب الشيء اللي خطرها كسر فلوسها أي نولو راركا madashan ayaa intii ay socotay waxa mas'uuliyiinta 20kaasi farmasi la guddoonsiyo abaalmarino kala duwan oo dhinaca bixinta adeega caafimaadka gacan ka siinaya farmasiyadan si kastaba ahaatee mashruucan loo yaqaano bulsho kaab ee Boorama ka hirgalay ayaa waxa uu yahay mid lagu xushay 20 farmasi isla markaana lagu xushay meesha ay ku yaalaan iyadoo ay xusid mudan tahay in shaqaalaha ka howlgala farmasiyadaasi caafimaadku ay gabi ahaanba yihiin kuwa wax ka barta jaamacadda Camuud kuliyadeeda caafimaadka isla markaana ay gacan ka geysanayso hay'adda BSI